in aan aragtideeda qofeed soo bandhigo aniga oo ay ujeedadaydu tahay haddii ay ila fududaan lahayd inaan xagxagto kuna durduriyo sharafka walaalkayga iga fikirka duwan sida mareegaha bulshadu ku kulanto aad maalinlaha ugu aragtaan ayaan odhan lahaa halabuurka iyo hormooyinka qalinmaalka ah ee hibada curneed lagu galladay iyo guutooyinka hilada waxbarashada ka soo fulayba waa dad ku foogan ximinta ay isximinayaan waa dul ay nasaabtay isla weynidu isbididda iyo qoortaaguna uu madax maray qanacsanaanta aan cagaha adag ku taagnayn iyo afkaarahooda qosol ku jabka ahiba waa muraayada beenta ah ee ay hortaagan yihiin kuma sadhaco sidaa oo waxa aan maanka ku hayaa in ay diintayda suubani iga reebtay in aan wax dhimaala u geysto karaamada qofka kuma dhiiran karo oo dhaliilaha aan sheegay runba ma ahayn waxaase hubaala jibadii iyo qiiradii dadkeena indhala'aanta ku riday kama aysan badbaadine iyana way u afduuban yihiin waxaadna adigu ii markhaati kacaysaa marka aad aragto maansayahan ay ishayaan maansayahan kale qoraa gorfaynaya buug uu nin kale qoray wasiir jaga laga qaaday iyo xildoon laga guulaystay sidii la doonaba ha looga reeye ugu dambayn haddii aad fikirkaaga dadweynaha la wadaagayso ha u ekaan sarreeye guud oo amar bixinaya hana noqon garsoore maxkamadeed oo xukun ridaya aad baan idin salaamaya